kaasaa moral noo aha annaga oo shidaal lagu shubayo aan kuugu daree waagii ugu horreysay ee aan bilaabayay wax soo gudbinta horta waxaan jeclahay waxbaridaan jeclahay markaan jaamacadda xataa jaamacadda markaan gelayay opshonnada aan ka fikirayay in waxay ahayd macallinnimo aan ku takhasuso adi duruufo jira awgeed waan ka leexday macallinnimadii hay cabdirasaaq soo dhowo ustaad waa mahadsan tahay ardada su-aalihii ardada baan xoogooda kala baxay ma horena waa usoo galay waxaan keliya u holladay keliya inaan sheer xirfad u mahad celino gaar ahaan ustaad mustafa xaleed anaga waa shaksiyan waa markii ugu horreysay hadaaye arday baa wuxuu ka hadlayay ma isbari karaa aniga haddeer ilaa 3 institution baan iska diiwaangeliyay oo lacag igaga baxday waan gartay markaan sheer xirfad yani institutionka bixiya ardada waxbara marka kuwa hindi leedahay wareerka badan marka waa khibrad baan ka helay qaabkii ugu fiicnaa iyo meeshii ugu fiicneed aan u bogeyna waxay noqotay sheer xirfad marka ustaad waa arrinta ayadaa waa idinka hambalyenayaa waana ku mahadsan tihiin juhdiga intaa leeg iyo dhaxalka aad ummadda soomaaliyeed uga waxaan leeyahay jasaakallah annagana arday ahaan waxaan ku dadaalaynaa maadaama aan baajkii ugu horreeyey nahay 40 baan ku bilownay in 40ka iyagu aan baasan insha allah si idinkana ay shidaal idinku noqoto iyo moral marka aad baa u mahadsantahay ustaad khayr allah ku siiyo hadalkaasaa moral noo ah annaga oo shidaal lagu shubayo aan kuugu daree waagii ugu horreysay ee aan bilaabayay wax soo gudbinta horta waxaan jeclahay waxbaridaan jeclahay markaan jaamacadda markaan gelayay opshonnada aan ka fikirayay in waxay ahayd macallinnimo aan ku takhasuso adi duruufo jira awgeed waan ka leexday macallinnimadii markii aan jaamacadda dhameeyey oo aan shaqo bilaabay yaa waxaan is arkay shaqadii aan jeclaa inaanan haynin kadib waxaan bilaabay wiil aan saaxiiban ahay oo sheer xirfad aan isla aasaasnay ayaa igu dhiirigeliyey inaan youtube-ka aan furo kadibna aan meeshaasi cashiro kusoo gudbiyo cashiradii markaan bilaabay dabcan soo gudbinta cashiradu ma sahlana macalinka intuuna wax soo gudbinin yani cashirka wuu diyaariyaa lianno markaad ardayda hor imaanayso waa in aad wax aad la hor imaato oo aad adiga waqti soo gelisay waa inaad la hor imaataa almuhim cashiradii waan bilaabay youtube-kana waa taqaanaayo 2 isbuuc ay gaari jirtay inay 100 arday gaadho oo 20 arday ku daawani 40 arday ku daawani waxaasna waxa weeyaan naftu ma ogtahay waxay dhihi dadku ma rabaanba halka muuqaal ay soo dhigto ay intaasoo kun ay daawanayso marka ilaahay hadduu kuu sama ogol yahay anigoo ka caajisay ayaa wiil baa ila soo hadlay wuxuu ii soo reebay fariinu ii reebay anna waxaan jeclahay inaan ardayda aan isku dhawaano wada aan xiriirkeena inuu dhawaado sifo aan baahida ardayda aan u ogaado wiilka wuxuu igu yiri casharadii maalmahan ma helin waxaan joogaa kaakumaan joogaa waxaan casharadaada ganacsadaan ahuu dhahay casharadaadana waan qaataa wax badan baanan ganacsigayga uu ii faa'iideeyey hataa cashirada sifa aan u qaato waxaan soo kaca u dhahay 3 subaxnimo 9 subaxnimo ee salaada subax ka hor yaan soo kaca sababtuna wuxuu yiri internetka ma ii saamaxayo maalintii inaan cashir ka qaato waqtigaasaan soo kaca eraygaasi ayaa wuxuu igu qasbay cashiradii aan googoyn jiray inaan si toosa u wado oo 29 cashir aan soo gudbiyo managerialna aan soo gudbiyo kadib ayuu mashruuca sheer xirfad soo bilowday marka waxaan ula jeedaa feedbacka aan idinka helayno saraxatan waxay noo tahay shidaal ayay noo tahay oo yani na sii wadayo in aan arrintan sii wadno aanan sii qurxidno biidnillaahi marka cabdirasaaq aadan kaaga mahad celinaynaa allah ku barakeeyo ustaad waa hadda waxaan aniga wadaa master MBA oo wuxuu yahay accounting and finance si fiican sheer xirfadna nasiibkan ku helay waxay ahayd maadada accounting and finance-ga baa semester 1 qaadanaynay macallin baa noo dhigayay
marka east africadan wadamadan east africada baan ka baranayay marka anoo baarbaaraya macalinkii waxaan ku qanci waayey cashiradii uu soo gudbinayay iyo buugguna siiyo aad u koobnaa oo 120 page ahaa waan gartay marka wixii baa waxay noqotay accountinguna waa garanaysaa waa wax isku xirxiran oo jabtarba jabtarka uu ka dameeyo uu furfuraya si aniguna fiican markii hore IT baan ka imi waan gartay oo background accounting ma lahayn anoo marka baarbaaraya internetkii baan waxaan ka dhexelay YouTube-kaagii waan gartay kadibna sidii baan u sheer garaystay 29 cashir ma wada daawan laakiin cashiradii aan ka danaynayay iyo jabtaradii aan ka rabay baan kala dhex baxay wax badan baana ka faa'iiday maasha allah maadadaana 80 iyo dhowr baan keenay oo waa de waxay ku timi ilaahay fadligii iyo wixii aan ka faa'iidaystay laakiin kama maasha faa'iidin macallinkii iyo jaamacaddii midna wax kama faa'iidin maasha marka allah marka aad baa u mahadsantahay kadibna hadda anoo aakadii ku dhex jiro oo waxaan isleeyahay professional raaso oo maadaama aad accountingan rabtid inaad meel ka gaadhid oo waxaan iska diiwaangeliyey meel qolo hindiya baan iska diiwaangeliyey qoladii haddana waa ku qanci waayey qaabka wax usoo gudbinayeen kuwo kale haddana iska diiwaangeliyey internetkay wax ku duubeen baa wuxuu ahaa iyo materialka isticmaalayeen baa aad u liitay baan waxaan arkay notificationka waxay soo dhacay sheer xirfad waxa la bilaabaya aaka waa gartay subxaan allah dhammaan wixii dhaqaaliga ga baxay dhan waa boos gareeyey December sidii baan u sugayay waa isdiiwaan geliyey sidii baan page-kii sheer xirfad saasaan kusoo galay marka haddeerna waa baafiyaa waxaan dhahaa war marka waxaa ii soo baxday raggiina dhalinyarada iyo soomaalida ah oo ragga kale ma aqaan kolley sheer xirfad waxaan u qaatay inay tahay organization sababtoo mar aan la xiriirayay hebel yaa la xiriiraysaa wax ku qoran dad badan baa ku qornaa si fiican marka khayr allah idin siiyo arrintan waxaan ka wadaa waa wax sadaqa jaariya insha allah iyadana u niyeysta waa wax haddaad dhimataan 100 sano oo dambe asad ah waa kayd kelmad hadalkii bilowgiina waa ku jiray jiilkii ina ka horeeyay Soomaali waxba ugama tagin marka arrintaasna insha allah kolley haddii xataa haddeer annagu waa iska bini aadan baan aan gaabis iska noqono yayan idin niyad jabinaya noo dhammaystira insha allah balilaa skillka dadka insha allah haddii arrin Soomaaliduna haddeer waa fahmaysaa haddeer jaamacadihii anigu waalidna waa ahay maasha allah jaamacadihina qaali bay noqdeen kuwaalidka jaamacadeena Soomaaliyana waa hooseeyaan markaasaa haddeerna waxaa lagu daray sanado foundation ah oo yan waalidku ka bixi karaan marka waxay u badan tahay sida hadda East Africa ku arkay ardada wax sameeyay markii secondary ka baxaan bay hore ka bilaabaan fieldigan qofka danaynayo aslanba maba aado jaamacad hindida waa sida ay Pakistaniyiinta maba aadaanba Kenyaanka iyo hadda Ugandiska iyo dadkaas aan arkay iyaga wasaas qofku aadi ma maayo wuxuu aadayaa professionalka sababtoo hadhowna wuxuu helayaa diploma-na waa helayaa degree-na waa heli karaa hadduu u baahdo طبعا حتى ماستر بروفيشنال كدمايو ماستر wuxuu awoodaa inuu master u badasho marka waxaan u malanayaa waa meesha kaliya oo Soomaali resource-ga ay haysato inuu sharax xirfad noqon doono marka insha Allah aad baa u mahadsantiin ustaad Allah ha barkeeyo